Maxaa guska lagu weyneeyaa? Waa su'aal rag badan isweydiinayaan balse jawaabtu ma fududa. Sababta ayaa ah in xayeysiimaha aad aragtaan ee ku saabsan dawooyinka guska weyneeya aysan inta badan ahayn kuwo natiijo leh. Marka laga eego caafimaad ahaan ayaa la ogaaday in ay yar tahay daawo ama jimicsi keeni kara in guska uu weynaado. Balse waxaa horta muhiim ah in aan dhowr arrimood isla fahanno. 1. Maxaa lagu qiimeeyaa cabbirka guska? Su'aashan ayaa muhiim ah in aan si fiican iskula fahanno. Dhakhaatiirtu waxay caddeeyeen in haddii gusku uu gaarayo 13 sentimitir uusan ahayn mid yar ee uu yahay isku celceliska caadiga ah ee adduunka. Gus waa yar yahay, waxaa la dhihi karaa oo keliya haddii uu ka yar yahay 7 sentimitir taasoo ay keento cudur. Haddaba waxay u badan tahay in guskaaga uusan ka yarayn 13 sentimitir, laakiin rag badan ayaa qalad ka fahansan cabbirka guska. 2. Su'aasha labaad ayaa ah horta dumarku ma qiimeeyaan guska weyn? Sababta rag badan ay u doonayaan in ay guska weynaystaan ayaa ah in ay aaminsan yihiin in dumarku qiimeeyaan, balse tan lafteeda ayaa ah mid qalad laga fahansan yahay. Dumarku badanaa dan gaar ah kama laha cabbirka guska mar haddii uu ninku awoodo in uu qanciyo. Weliba dumarku ma jecla guska aadka u weyn oo xanuun keenaya. Waayo ujeeddada galmadu ma ahan in la isxanuujiyo ee waa in la raaxaysto. 3. Guska weyn ma kaga fiican yahay qancinta kuwa kale? Arrinta kale ee raggu ay aaminsan yihiin ayaa ah in haddii uu ninku gus weyn yahay uu dumarka qancin karo. Laakiin arrintan ayaa ah midda ugu weyn ee qaladku ka jiro. Si kasta oo uu guskaaga u weyn yahay, haddii aadan aqoon sida lamaanahaaga loo qanciyo, waxba tari maayo cabbirkiisa. Waxaa jira rag guskooda uu yar yahay haddana lamaanahooda gaarsiin kara raaxo aysan weligood hilmaamayn. Qancinta dumarku waxay u baahan tahay ugu horrayn kalsooni iyo in aad tahay nin yaqaana sida loo isticmaalo qalabkiisa. 4. Maxaad samayn kartaa si aad uga gudubto dareenka ku saabsan cabbirka guskaaga? Muhiimadu ma ahan in aad guska weynayso, laakiin waa in aad xoogga saarto in aad xal u hesho kalsooni darrada ku haysa. Haddii aad tahay nin cayilan, isku day in aad iscatayso, baro sida kalsoonida loo dhisto. Baro sida gabdhaha loo qanciyo xitaa adiga oo aan guska isticmaalin. Kanaalkeenan ayaa kaa caawin doona taas ee subscribe ha ilaawin. 5. Khataraha ay leeyihiin dawooyinka intooda badan. Daawooyinka lagu iibiyo suuqa madow ee sheegaya in ay guska weyneeyaan waxay leeyihiin khataro caafimaad oo weyn. Waxay dhaawac joogto ah u geysan karaan guska. Haddaba adiga oo raadinaya in aad guska weynayso, ka waran haddii uu dhaawac kaa soo gaaro? Haddii uu mar dambe kuu kici waayo? Si weyn uga taxadar isticmaalka daawooyinka iyo waxyaabaha kale ee lagu sheego in ay guska weyneeyaan. Waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa daawooyinka aniga shakhsi ahaan aan tijaabiyey ee waxtarka leh. Si aad u heshid xogo badan oo ku saabsan arrimaha sariirta nolosha iyo saykoolojiyada nafta, fadlan naga soo follow garee TikTokta, Facebooka, subscribe kana riix. Mahadsanid.